ugaas maxamed ugaas jamac baruur oo ka mid ah ismada Puntland ayaa ka tacsiiyay dadkii ku dhintay dagaalkii ka dhacay magaalada Boosaaso ee ka dhashay diyaarad gargaar siday oo laga ceshay magaalada Boosaaso. Ugaaska ayaa sidoo kale dawladda iyo ismada dhaqanka ugu baaqay in cid kasta oo ka dambeysay falkaasi lala xisaabtamo sharcigana la horgeeyo. inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun madintu wa ilaahay ilaahay naxariis janna Allah siiyo dadkan ku dhintay Boosaaso dadka dhibka geystay oo sababta ah arrimahan inay dhacaan waa in talaabo sharci ah laga qaadaa sababtoo dad amna la'aan ku dhintay wixii qaladkaas sameeyay waa in gaar ahaan arintaas iyada ah oo wax laga qabtaa arintaas odayaasha dhaqanka indheer garatada ismada dhammaan waan arintaas iyada ah loo fooljignaadaa si degdega arintaas wax loogu qabtaa dadkaas madahooda iyo danahoodana waa in meel la saaraa sida ugu dhaqsimaa badan. isin haddaad maqashid waa nabadeynta arrimaha bulshada iyo hormoodka arrimaha bulshada marka bulshada hormood haddaad u tihiin waa inaad nabadooda ku dadaashaan nabadda ha lagu dadaalo nabad annaas la nuugale. Puntland waxay ku horumartay 100 nabaran niishin odayaasha dhaqanka ay ku horumartay iyo ismada marka ismow magaciina ilaaliya bulshadiina ilaaliya. Ismada waxaan farayaa dadka fidnada wado oo dadka isku dirayo waa in laga qabtaa fidnada dadka shacbiga masaakiinta laga ilaaliyo dadka fidnada wato ha laga qabto dadka. Ismow waajibaadkiina guta howshiina guta shaqadiina qabsada wixii dib u keenayo ummadda Puntland ha laga qabto. Fidno khasaaro iyo dib iyo rafaadi keentaa hadda meeqa dhimatay intaasaa dhaawac intaasaa dhimatay dan ma dadka ugu jirto shacbiga ama ummadda Soomaaliyeed tan ugu ma jirto marka dadka fidnada dadka ku dhax wado waa la yaqaanay hala qabto ha laga qabto wadanka sharcigana la tiigsado waajibaadkooda waxay noqdaan hala mariyo. Abdul Agardi SBC Garow.